buu yidhi nin tagsiila ah baa jooga buu yidhi New York ayuu tagsiile ka yahay wuxuu qaadaa airportku dadka ka qaada suuqu geeya 6 bilood gudahood 58 qof ayuu kursiga dambe shahaada ugu qabta waa tagsiile muxuu sameeyaa marka zabunku customerku markuu soo fuulo ayuu quraan u saaraa cod fiican leh reer Yurubku mesela Mareykanku uu ka furfuran yahay Yurubtan kale waxa laga yaabaa nin guriga ka soo horjeeda oo ku jira inaan weligaaba kula hadlaan oo wada degantiin weligiina ay sarkiseen hayna inaydan isku odhan baa suurtagala laakiin Mareykanka iyo meelahaas waa rog midhan oo dad afka kula soo galayo aad u hadal badan quraanku shidaa markuu quraanku baxo ay yiraahdaan heestan fiican maxay ahayd bay yiraahdaan marka codkan muddo isagu maqlay isagu question ka la weydiiyay uu doonayay wuxuu dhahaa hees maaha waa the last revelation from God waa aakhir wahyi xagga rabbi ka yimaada dabeetana markaas uu sharxaa waxa kan dadku u sharxay 58 kamida baa yiri waa islaamina waa shahaada u qabtay iyagoo kursiga dambe saaran mujarrad inuu quraanka maqashiyo kadibna Jaafar Idris wuxuu kala tilmaamay nin kale oo soo islaamay muslimiinta masaajidka joogo yimaada wuxuu dhaw waryaadeen dadku naar bay ku daadanayaan waa gaalo idina halkan baa iska fadhidaan warkaalayo raaca waxba idinku kaanadiin sheegun idinku kaanadiin keeno diinta u sheega wadadu istaaga dadka wadada mariyo kulay hello ma islaam rabtaa inaad barato ma islaamaysaa badbayda war naga banee qof wadada mariyo inaad tirma islaamaysaa war ka banee wadada idhaa qaar baa dadku isku mid ma mid bayda waa maxay islaamku gacantu qabtaa laba wadaad oo ka soo kaxaystay masaajidku yiraahdo u sharax dabeetana isagoo halkiiba ku noqday isagoo halkaas iska taagay dadkan wadadan maray wuxuu leeyahay war ma islaamaysaa dadba in badan waxay leedahay war naga tago ordo way dhaafayaan laakiin mid baa oranaya waa maxay islaamku kiidaha waa maxay islaamku qabtaa maalin kasta dhowr qof buu islaamka soo galiyaa waa hal nin maalin kasta dhowr qof buu islaamka soo galiyaa idan waxay leeyihiin waqti inuu hadda joogno ducaada aynu tilmaamayna waa dadka ninka isagu la aanu islaam badan garan ma inay markaan idin soo qabqabanaya idinkuna diinta u sheega qoladiina masaajidka jooga maalinba laba buu ka soo kaxaystaa dadka masaajidka jooga